dalka jamhuuriyadda Somaliland waxa uu leeyahay lacag u gaar ah oo magaceedu yahay shilinka Somaliland wadamo door ah oo geeska Afrika ku yaala ayaa iyaguna isticmaala lacagta shilinka loo yaqaano dal kasta waxa uu leeyahay lacag isaga u gaar ah oo uu magaceeda iyo maamuuskeedaba kor u qaado suurtagalna ma noqon karto in lacag dal shisheeye leeyahay mid kamida dalalka dunida gudihiisa wax lagaga iibsan karo way dhici kartaa in lacag shisheeye ay dawladda dalkaasi u sarrifi karto cidii sidata laakiin sida dalkeena ka dhacda ma jirto dal ogolaan kara in lacag shisheeye si caadi ah wax loogu kala iibsan karo suuqyada magaalooyinka dal ay lacag aan tiisa ahayn ay qalib ka noqoto lacagtiisa waxa aanay cidina diidi karin in dalkaasi uu ku dhacayo khalkhal dhaqaale mushkilada dhaqaale ee dalka jamhuuriyadda Somaliland ka jirta waxa sabab u ah lacagta shisheeye ee ka qalib ka noqotay lacagtii shilinka Somaliland xaqiraad aan geedna loogu soo gaban ayaa ku habsatay lacagta shilinka Somaliland waxaana marar badan dhacday in lacag qofka wax u goyn karta oo kamida lacagta shilinka Somaliland laga waayo suuqyada ganacsiga taasina waxay sababtaa sicir barar ku dhaca alaabta la kala iibsanayo tusaale ahaan waxa jira alaab ku qiimaysan 100 shilin iyo 150 shilin ee Somaliland 200 iyo 300 shilin oo hadii qofku u baahdo in uu wax ku iibsado aanay suurtagal ahayn in uu hab dhaqaalaha waafaqsan uu ku iibsado wixii uu rabay maxaa yeelay waxa suuqa ka baxay lacagta 100 shilin iyo 50 shilin ee Somaliland hadii qofku u baahdo xabad nacnac ah ama buskud ah oo qiimaheedu yahay 100 shilin isla markaana uu sito qofkaasi 500 oo shilinka Somaliland ah oo uu ugu talagalay in uu u maareeyo hab dhaqaalaha waafaqsan oo uu rabo in uu caruurtii u geeyo laba xabo oo nacnac ah oo min 100 shilinka Somaliland ah 300 ee uga soo hari lahaa 500 ee uu sitayna ugu iibsan lahaa 3 xabo oo aspirin ah uma suurtagelayso oo ma jirto lacagtii 100 shilin ama 50 shilin ee Somaliland ee dukaanku baaqiga ugu celin lahaa sida awgeed dhibaatada lacagtaasi suuqa laga waayay ay keentay ayaa qayb weyn ka qaadata sicir bararka ku dhaca alaabta waxaad markay iibisa waayahay xadiga iibinaysa marka doonayo inaad iibso ku gudkaas igama iibin karaysid wax inta boqolaalka shanta boqol baa kaaya 500 dhagay aniga markaa waxaa iga khasaaray 200 oo aan doonay 700 inaan u darsado oo wax kala ku qabsado daraasad la xidhiidha mushkilada dhaqaale ee ay sababtay ka maqnaashaha suuqyada ee lacagta 100 shilin iyo 50 shilin ee Somaliland ayaa waxaa sameeyay xafiiska aqoonta dhaqanka iyo cilmi baarista Cultural Science and Research Committee oo ay wada shaqeeyaan jaamacadda Shaafi ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha jaamacadda Shaafi Mr Maxamed Cali iyo madaxa xafiiska guddiga aqoonta dhaqanka iyo cilmi baarista Cultural Science and Research Committee Mr Mustafa Abdullahi Warsame ayaa inooga warramaya mushkilada dhaqaale ee ay leedahay in lacag wali qiimo leh oo wax goynaysa ay suuqyada ganacsi ka baxdo taabano goobta ugu muhiimsan ee sixir bararku ka dhaco waxaan qiyaasnay markaa dhaqaalaha dalku uu leeyahay dadku ay soo saartaan ee dhulkooda ay ka soo saartaan tan labaad waxa weeyaan xoolaha ay markaasi ay doonkeenu leeyihiin xoolihii qoobatan dhibaato ayaa dhacday oo xoolihii loo jiraa beeraha qodanaana ma jiraa madaxweynuhu isagoo wuxuu ku talagalay waa barnaamij wanaagsan sameeyay laakiin samida meesha ku jirta ee aynan hadii xataa la soo saaro aan dhacayn waxa weeyaan dalka gibigiisa wuxuu leeyahay 3 waraaqood oo lacag waa 500 iyo 1 shilin iyo 5 adduunka inagu xeersan ma jiro dal noodkiisa lacageed uu yahay 3 waraaqood oo kaliya oo aan fraction ahayn tan macnaheedu waxa weeyaan nin aari leh oo laakiinse aan lahayn maqashi laakiin muhiimaddu kooda waxay tusaale yar fudud oo bulshada soo qaato sax bas bad raacna Soomaa bas meel buu ka dhaqaaqay meel buu istaagay in hadda ka soo dhaqaaqay barta idaacada oo intii xaafadda ku taala gantaalaha ama ku taala Maxamed Mooge qiimaha la iga qaaday talaabadiiba iyo qiimaha guriga ku tagay wasmid waamisa waa ku leeshan dalka jaarkeena balay Ethiopia jaar noo baski waxa lagu saleeyay lacagtooda si ay u shaqeyso oo 5 shilin sanadii loogu celiyo qofka talaabadu qaadamay in qiimo ku fadhiyo isweydiintu waxay tahay hadaba maadaama wali ay suuqyada yaalaan alaab ku qiimaysan 100 shilin ee Somaliland maxaa sababay in lacagtaasi suuqyada ka baxdo miyaan la oran karin maamul xumo lacageed ayaa ka jirta bankiga dhexe ee Somaliland oo shaqadiisu tahay maamulka iyo soo daabacada lacagta dalka xukuumadda cusub ee uu caynaanka u hayo hogaamiyaha qaranka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay dhawaan qaaday talaabo wax ku ool ah oo dib loogu soo nooleynayo qiimaha iyo manzilada lacagta Somaliland ay ku leedahay suuqyada dalka shirkadaha
bixiya adeegyada lacagta sida elektarooniga ah la isugu diro ee dalka ka shaqeeya ayaa waxaa iyagu laftoodu door shariif ah ka qaateen kor u qaadista iyo isticmaalka lacagta shilinka Somaliland inkastoo sidii la rabay aanay weli hawshaasi u wada meel marin kadib markii ay aqbaleen in adeegyadii ay bixinayeen ee lacagta sida elektarooniga ah la isugu diro oo markii hore ku shaqeynayay lacago qalaad ay u bedelaan shilinka Somaliland talaabadan ay xukuumadda Somaliland qaaday ayaa ah mid wax weyn ka taraysa ku qanacsanaanta lacagta